waxaa jirtay kayn cufan. Kayntaasoo gebigeedaba jag ah waxaana ku dhex taalay markaasi tuulo yara. Tuuladaasoo loo yaqaanay Qoryo Macaan. Dadka markaasi safarleyda oo Qoryo Macaan markaasi booqda waxay la yaabi jireen markaasi qabiilka ku nool, kuwaasoo ah kuwa aad u qalbi wanaagsan, mar walba dhoola cadaynaya. Waxa ayna dadka shisheeyaha ku soo dhaweyn jireen gacmo furan. Laakiin mar qofkii galaa tuuladan Qoryo Macaan ma uusan ka soo bixi jirin. Dadka tuulada jooga waxa ay xiran jireen ubaxyo ay dhuunta ku xiran jireen. Waxaana markaa hogaamiye u ahaa gabar la yiraahdo Ayaana. Ayaana waxay ahayd qof aad u qurux badan. Markii ay afkeeda kala furtana wanaag iyo xikmad ma ahee wax kale kama soo bixi jirin. Tuuladan Qoryo Macaan waxay ahayd sida jannadii oo kale, meel aan la taaban, taasoo markaasi dadka u soo bandhigaysa guri, cunto iyo nabad. Laakiin waxaasoo dhan waxa ku hoos karsanaa sir aad u madow. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa tuulada soo agmaray 6 qof oo sahmiyaal ah. Markaasi dadkii tuulada ayaa waxay u soo dhaweeyeen sidii inay yihiin oo kale familkoodii oo muddo hore ka lumay. Laakiin dadkii markaas sahmiyaasha ahaa way daalnaayeen, haddana waxaa ku jiray walwal. Sidaas darteed way ka labalabeeyeen. Markii ay arkeen wanaagga ka muuqda dadka Qoryo Macaan ayaa qalbiga u degay. Markaas ayay tuulada soo galeen. Waxaa la siiyey markaasi weelal ay ku jiraan hilibyo aad u waaweyn, kuwaasoo aad u macaanaa. Waxaana lagu kariyey qoryo. Markaasi dadka tuulada way qoslayeen, waxayna bilaabeen inay heesaan. Codadkoodana wuxuu ahaa mid qalbiga u dejinaya. Markii ay cunteynayeen, mid ka mid ah sahmiyaasha oo la yiraahdo Saara ayaa waxay aragtay arrin la yaab leh. Cunug yar oo fadhiya dhinaca shishe oo dabka wax lagu karinayo ayaa wuxuu cunayay hilib weyn oo guduudan. Markii ay indhahooda iskabteen, cunuga yarkaa wuu dhoola cadeeyey, ilkihiisana wuxuu lahaa guduud. Markaasi intiisa Saara hadlin ka hor ayaa Ayaana gacanteeda garabka ka saartay, waxayna ku tiri, meeshani nabad ayaa ku qabtaan. Codkeeda wuxuu ahaa mid aad u jilicsan oo aad u qurxoon sida malabkii oo kale. Annaga waan ku faraxsanahay inaadna soo booqataan. Ninkaasi dadkii tuulada waxay ku qasbeen kuwii sahmiyaasha ahaa inay ku nastaan buulkooda ugu weyn, kaasoo loogu talagalay xafladaha. Markaasi dadkii sahmiyaasha waxay isku dayeen inay soo jeedaan, laakiin maadaama ay daalnaayeen, cunto badanna cuneen, hurdo saa'id ayaa qabatay, wayna seexdeen. Saara ayaa waxay ku soo kacday qaylo aamusnaana, qof qaylada lagu celinayo. Indhaha markii kala furtay, buulka wuxuu ahaa mugdi. Kaliyaata waxa ifinay waxay ahayd tooshka yarka oo banaanka ka imanayo. Waxay u soo jeesatay dhinaca kale si ay kuwa kale u kiciso, laakiin meeshii hurteen eber ayay ahayd. Markaasna dhiig ayaa ku yaalay. Isla markii way naxday, wayna istaagtay. Madaxa ayay ka dusitay darbiga tolmada. Markaas ayay aragtay dadkii tuulada oo markaasi ubaxyadii ay katin ahaan u qabeen markaasi lagu soo bedelay fara bini'aadan oo la jarjaray, ayagoo markaasi goobo ahaan ku wareegsan miis aad u weyn. Miiska korkiisa waxaa saarnaa Saara dadkii la socday mid ka mid ah. Markaasi xabadkiisa wuu kala jeexnaa, waxaana korkiisa taagnayd Ayaana, taasoo markaasi gacanteeda wada dhiig yahay, ayadoo markaasi xubnihiisa mid mid u soo saarayso. Dadkii tuulada markaasi waxay bilaabeen inay qayliyaan. Markii ay soo saartay wadnihiisii oo weli dhaqdhaqaaqayo, ugu dambeynna afka ayay gashatay. Saara isla markiiba labadeeda gacmood ayay afka ku qabsatay si aysan u qaylin, laakiin cabsidii bartaas kuma aysan dhammaanin. Waxay bilowday inay kasoo guguurato buulkii. Lugaheedana markaasi waxay ku dul soconayeen ciidda wada dhiiga ah. Markay u dhawaatay geeska tuulada, waxay aragtay lafa la rugay oo meelaha lagu kala daashay. Sidoo kale waxay aragtay hilib la yaryareeyey oo la kor saaray dhagaxaan aad u weyn oo lagu qalajinayo bartaas. Waxayna sidoo kale aragtay weelal aad u waaweyn oo baruur lagu karkariyey, markaasna lagu sii karinayo hilibyo waaweyn. Geeska isheeda ayay waxay ka aragtay mid ka mid ah dadkii tuulada, kaasoo afaysanay mindi, asagoo markaasi foorinaya si farxad iyo xiiso ka muuqato. Laakiin markaas ayay aragtay midii ugu darneed oo dhan. Intii ka hartay sahmiyaasha dadkii ahaa oo iyada la socday, kuwaasoo markaasi loo gowracayo sidii inay xayawaankii kale yihiin oo cunto yihiin. Markaasi ayagoo qayladooda tahay mid daciifa, dhibaato saa'idana ay ka muuqato. Dadkii tuulada ayaa gowracayay oo jarjarayay. Mid ka mid ah haweeneydii ayaa waxay ka bariday naxariis, laakiin Ayaana ayaa waxay ku aamusay inay madaxa kaga dhufato dubbo. Markaas ayayna dhimatay. Saara oo naxsan ayaa waxay ku istaagtay geed. Wuu jabay.
isla markiiba way soo wada eegeen. Markaasi waxay tidhi Ayaana, waxaan u malaynayaa martideennii ugu dambeysay inay soo kacday, ayadoo codkeeda qurux yahay, wejigeedana dhiig ka da'ayo. Dadkii tuulada dhoolla caddayntooda way weynaatay, markaasna indhahooda waxaa ka muuqatay gaajo saa'id ah. Saara waxay bilowday inay cararto, waxay ku carartay dhinaca kaynta. Markaasi laamaha dhulka yaala ayaa lugaheeda jarjarayay, jiridahana way ku kufaysay, laakiin si kastay u cararto, qosolkooda ayaa gadaasheeda daba socday, asagoo markaasi u isqabsanayo kaynta oo dhan. Waxaabad moodaa bahal inuu ceersanayo. Saacado kadib, guruub loo soo diray inay raadiyaan dadkii sahamiyayaasha ahaa ayaa waxay ka soo duldhaceen tuuladii Korye Macaan. Markaasi ma aysan arag xataa hal qof oo ka mid ah dadkii tuulada ama wax caddaynaysaba in meeshan lagu noolaa. Keliyaat waxay arkeen Saara, taasoo ku xiran geed aad u weyn oo ku dhex yaala bartamaha tuulada. Saara waxaa loo gowracay si xadka baxa, markaasi waxaana la kala dilaaciyey feeraheedii sidii ubaxii oo kale, waxaana markaasi ka maqnaa wadnaheeda. Waxaa ku qornaa dhinaca kore ee geedka, jacaylkeenu wax walba uu cunaa. Korye Macaan waxay noqotay haliyey digniin aamusan oo loo digayo dadka isku daya inay ku sii fogaadaan kaynta. Laakiin runtu aad ayay uga sii xun tahay sheekada, taasoo ah in qabiilkii ku noolaa Korye Macaan ay weli sugayaan, ayagoo ku dhoola caddaynaya mugdiga, waxayna sugayaan cuntadooda xigta.